ninkii nabi maxamed aflagaadiyey sallallahu alayhi wasallam halkaana ku baktiyey shil gaari ayuu galay kadibna waa uu baktiyey gaarigii la socday iyo gaari kale u weynaa isku dhacay kadibna isagii halkaan buu ku baktiyey filkas oo 75 jir ahaa ayaa waxa uu soo saaray sawir gacmeedkii aan idin sheegay sanadka 2007 ilaa xilligaasna wuxuu ku noolaa gacanta booliiska oo wuxuu ahaa nin baqayay oo xitaa meel kasta oo taga adduunka in lagu qaarijiyo ka cabsanay hadaba filkas ayaa baqtigiisa waxa uu xaqiijiyay warbaahinta sida la sheegay xaaskiisa oo cadeysay ninkaasi oo gabi ahaanba dunidii maca salaam السلام عليكم صاحبي ملك سوا joogtaan halka adiga daawanaysan waa channelka Shaacir Sheekay laakiin Shaacir Sheekay ku soo dhawaada barnaamijka dalaynta bulshada oo aan idin kugu hayo farshaxameystii reer Swedish ee caayay nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa ku baqtiyay dalkaasi Swedish kadib markii uu shil gaari galay aan ku hayaa muuqaalo laga soo duubay qaabkii uu shilka u galay iyo shakhsiyadda ninkaasi filkash inta uusan baqtin kume ayuu ahaa maxaa kalifay in ciidamada booliska uu ka ag fogaa waayo geeridiisa iyo baqtigiisa ayaan halkan kugu soo gudbinaa macluumaad badan oo ku saabsan ka hor intaan barnaamijka ugu galin fadlan sawirsaasa channelka sidoo kale layla dhac muuqaalkan si uu gaaro saaxiibo badan wahagaag saaxiibeel ninkan oo lagu magacaabo filkas ayaa farshaxamaysto u dhashay wadanka Sweden ama Swedish wuxuu hadda ka hor sameeyay sawir gacmeed oo ku tilmaamayo nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu leeyahay waa sawirkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayuu wuxuu ka sameeyay sawir gacmeed ama adiga sawir gacanta lagu sawiro isagoo waliba ku dul sawiray ninkan ayaa markuu intaas sameeyay waxa ka carooday dhammaan dadka muslimiinta ahaa waxaana sawirkaasi qasbay in dad badan oo muslimiin ah ay dunida oo dhan ama caalamkaba ay qalgalgeliyaan ninkan meesha uu joogo inay ugu tagaan intaasi kadib ninkani wuxuu ahaa qof booliiska ku hoos lamaansan oo aan xor ahayn oo booliiska ku hoos nool ayuu ahaa hadaba waxa uu ku safray gaari booliis ah inta uu san baqtin ka hor isagoo ku safray magaalada Markayd ee koonfurta Sweden ayuu ninkani gaarigii booliiska ahaa asagoo ku safray iyo booliiska la socday waxa isku dhacay gaari xamuul ah oo dad shacab ay wateen shilkaasi waxa la sheegay inuu isagu ku baqtiyay laba askari oo kale booliiska ay ku geeriyoodeen shilka sidoo kale waxa la sheegay in darawalkii xamuulka gaariga ay isku dhaceen sidoo kale oo dhaawacmay oo halkaasi ku dhaawacmay sida ay sheegeen his death and the Swedish news agency TT said police had confirmed that Vilks 75 was traveling in the car with two police officers who also died filkas oo 75 jir ahaa ayaa waxa uu soo saaray sawir gacmeedkii aan idin sheegay sanadka 2007 ilaa xilligaasna wuxuu ku noolaa gacanta booliiska oo wuxuu ahaa nin baqayay oo xitaa meel kasta oo taga adduunka in lagu qaarijiyo ka cabsanay hadaba filkas ayaa baqtigiisa waxa uu xaqiijiyay warbaahinta sida la sheegay xaaskiisa oo cadeysay ninkaasi oo gabi ahaanba dunidii maca salaam waa guul soo yeetay dadka Soomaaliyeed waa guul soo yeetay dadka muslimiinta meel kasta ay joogan hadaba ninkan filkas hore ayaa la sugu dayay in dhowr jeer la dilo laakiin inuu halkaas ku baqtiyo ayaa dabcan qornayde filkas oo xitaa dhowr jeer isku dayay inuu dadka marna habaabin ku sameeyo inuu qaladka uu geystay xitaa ka tirto 2015 ayaa isagoo ka qayb galaya shir looga hadlayay xorriyada qowlka waxa lagu soo weeraray meesha uu ku jiray isla markaana wuxuu ka badbaaday in la qaarijiyo sidoo kale al-qaacida ururka Ciraaq ka dagaalami jiray ayaa ninkan geeridiisa waxay dul dhigeen in la dilo waxay dul dhigeen $100 milyan oo dhigata 75 milyan oo euro marka ninkan waxa dareemi kartaan inuu ahaa nin ku cabsi ku noolaa tini iyo markii uu isku dayay inuu suubnayna Maxamed sallallahu alayhi wasallam aayo kaligiisna ma ahaanay dad badan oo isku dayay in nabiga sallallahu alayhi wasallam aflagaadiyaan ayaa adduun inta aan qira la gaarin waxa u sugnay halag tan iyo inta ninkan filkas oo maanta la joogo oo baqtiyo koorna wuxuu ahaa nin aan booliska ama ciidamada laamaha ammaanka aan dhinacna uga bixi karin wuxuu ahaa farshaxamayste
aan caam ahayn oo wuxuu yahay la arag laakiin dadka ama wadanka uu ka soo jeeda ayaa kor u buunbuuniyay oo kor u qaaday ilaa markii dambe uu noqday qof magaciisa hoos u dhacay oo aan nolosha iskaba dhaafe aan adduunka nolosha aan dadka nolol xitaa lagu xisaabin sidii waxaa loo ilaalin jiray ama wuxuu ahaa sidii qof nolol xun ku jira oo wuxuu ku hoos jiri jiray laamaha ammaanka ama ciidamada booliska ayuu ku hoos jiri jiray ugu dambeyntiina waa kaas isaga oo ku safraya gaariga ciidamada booliska ahaa shilka galay kadibna ku baqtiyay ninkani wuxuu isku dayay inuu dadka diintooda uu qarribo wuxuu isku dayay inuu nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam afagaadiyo laakiin waxaa ka raacay ba iyo hoog ilama oo isagu iskiis u baqtiyo ama tii ilaahay ay meeshiisa ugu timaado isagoo gacan bila aadan ka cabsanaya iyo in la dilo haddaba filkaas sheekooyinkiisa waa weyn muhiimna ma ana sheekooyinkiisa soo wada gudbiyo xitaa ninkan ra'iisul wasaaraha wadanka xilligaas wadankaasi markuu arintaasi dhacaysay ayaa wuxuu isku dayay in markii uu kartoonka soo baxayo dadka muslimiinta ay kaceen wuxuu isku dayay inuu xaalad dejiyo waxay arintiis ninkan madaxiisa dartiis waxay keentay in 22 dal oo muslimiin ah ay xitaa arintiisa ay ka fadhiistaan oo ay arintiisa ka wada xaajoodaan dhibaatada ninkan uu sababay dartiis maanta waa kaasa isagoo waxba ahayd buu iska baqtiyay sida aad muuqaalada ka arkaysaana waa kaasa gaarigiisii biyaha lagu bilbilay adduuna سلع إرفاض بكون ولا آخرنا إلهي بقى لكن وروا هيستا مركا فيلكس واكو دايي وركيسنا واباي الدنيا ما أنت أقدم به لكن تصالون نقدنا طبعا سعر الشيني إن شاء الله كوا قالة أما كوا كله جعل إن مرة البنبي محمد صلى الله عليه وسلم فكادية ذاتك المسلمين تانا قف كستا استجوا مبه إن لهم هاد عليه لكن قف كستا wuxuu u baahan yahay inuu meesha uu joogo iska dhaaf inuu Maxamed sallallahu alayhi wasallam laacay hadii diintiisa wax laga sheegay xitaa inuu u dagaalamo hadaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaanta ninkan asaga lama dilin oo lama dhaawicin ama wax la gaarsiin laakiin dad badan baa ninkan say qoorta uga gooyaan loo toogtay iyagoo oo baxsad oo ah in ay dilaan oo ma ay ka siiyaan siday u jecel yihiin nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam darteed laakiin ugu dambeyn نفتن يا مامولا إلى بقى عنده كوها إياه حالات دينا دقائق دينا كورقبة وأنا أمانة قف كستلو ديبتي ما كنا لقى شيء دي هالكاس قاري أصلا ببينا يا وش الدين هالكاس بلقوا ببينا يعني إيش وأقول كبر كي يسقطات كي يأودي يفسح ما ده وش يعني إيش فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هذا بس ده عشان مقال كلاش 10 ساعة مقال ده بحصل